أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع آمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد كلمة أنا أذكر دارين إنه كبدل إني تفسير كي سدا والعلوه إعلاميا هدي الله كلك إن شاء الله تعالى. وحينو سعتي ودور محاضرة في اللي لقيت شيء دي وضد بدبادة وحلقوا بدبادة سبيل نجاة أو سفينة النجاة. waxaan maanta haddii alla ka dhigo insha allahu tacaala aynu wax ka oran doonaa cilmigu inuu yahay sabiilu najaah waxa lagu badbaado cilmigu inuu yahay qofka doonaya badbaado adduun iyo aakhiraba inuu badbaado oo adduunyadan fitanteeda iyo isbedbedelkeeda iyo taqallubaadkeeda uu ka badbaado aakhirana ilaahay subxaanahu caza wajalla caradiisa iyo ciqaabkiisa uu ka badbaado waxaa waddada lagu badbaado ama waddooyinka lagu badbaado ugu muhiimsan cilmiga. sidaa darteed ayaynu waxaynu oranaynaa haddii alla ka dhigo insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala rususha wuxuu la soo diray bilcilmi cilmi waxay rusushu la yimaadeen waa cilmi oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam maxamed markii la tilmaamayay waxaa la yidhi wayucallimuhum alkitaaba waalxikmata wayuzakiihim waxbuu barayaa baa layidhi cilmiguu barayaa xikmada iyo sunnada iyo dariiqadiisuu barayaa wayuzakiihim wuuna dahiraya. culimmadu waxay yidhahdeen taskiyada iyo isdahiriddu waxay imaanaysaa cilmiga kadib oo qofku haddiiba aanu ogeyn inuu mudnib yahay ama muqasir yahay ama qof dambaabe yahay ama khaladba uu ku jiro dee qofku ma soo noqonayo isdahirin maayo toobad keeni maayo. laakiin maalinta uu og yahay oo aqoon u leeyahay inuu khaldan yahay waxa ka dhiman yihiin markaasuu isdaba qabanayaa waxa weeye yacni toobad keenaya. ambiyada markay rususha waxaa lala soo diray cilmi baa lala soo diray. saa darteed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam annagu haddaanu macsharka ambiyada nahay ama ambiyada kulankooda haddaanu nahay nalagama dhaxlo dirham iyo diinaar toona waxaa nalaga dhaxlaa cilmi baa nebigu calayhi salaatu wasalaam. cilmigu maadaama uu markaa wixii ambiyada lala soo dirayba uu cilmi yahay ambiyaduna ay dadka badbaadinayeen waxaan leenahay waddada lagu badbaadaya walaalayaal cilmiga wey. cilmigaan ujeednaa ma aha inuu qofka physics iyo chemistry iyo maths iyo barto sax way anfacaysa adduunyadiisa hadduu sadaqadaystana laga yaaba aakhiradiisa inay anfacdo laakiin waxaan ujeednaa ee ka lagu badbaadaya waa cilmiga kitaabka iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam saxiixa wey. waa cilmu alculuum waa cilmiga isagu asalka wey walow zamanka kan karaamadii sharaftii laga qaaday oo de waxaa lagu jiraa waqti gaalo iyo munaafiqiin iyo adduunyada ay ka taliyaan. saa darteed marka cilmiga sharciga ee kitaabka iyo sunnadu cilmiba ma aha ya ma leh miiso weyn iyo tixgelo weyn ma leh. waxaa laga yaabaa labada wiil hadda midna jaamica islaamiya ka soo baxay hadduu doono kan kaba digrii sarreeyo midna uu maaragtay jaamacaadkan engineerinka iyo farsamada lagu barto uu ka soo baxay hadduu doono ama waa electrical engineer ama waa machine engineer waxbuu bartay ninna waxaa la oranayaa waa aqoonyahan ya waxaa lagu tirinayaa aqoonyahanada la oranaya midka kalena maxaa la oranayaa wadaadada ya wadaadada iyo aqoonyahanka kala noqonaya ma noqonayaan labadii nin laba nin oo simanoo aqoonyahan iyo aqoonyahan bal haddii la doonahaba yani cilmiga hoos ha loo dhiga sharciga laakiin waxaa la oranayaa kanna waa aqoonyahan kanna waxa weeye maaragtay waa wadaad baa la oranaya soo arki maysa. ayib waxaana kalifay xabaarada galbeedka ayaa dee ina saamaysay. jazaak allah khayr akhi maxamed barak allah fik waa dadaash ma sha allah aad buu culus yahay kan wada bismi illah. ayib xadaarada galbeedka ayna saamaysay oo laba dhinac way naga saamaysay. iyagu waxa diimaha la yidhaahdo cilmi uma yaqaanaan. diimaha sixirka falka xidigiyeynta waxaasoo dhan agtooda kama aha cilmi. cilmi waxa agtooda ka marka la qeexayo waxa bani aadamku marka hadee taaban karo isoo ka salgaari karo ya macmal la geliyay oo laga salgaari karo kaasa marka waxa la yiraahdaa cilmi. ninkii waxa bartay waa cilmi wixii kale laakiin cilmi ma aha. saa darteed diimuhu waxay ku jiraan waxyiga kitaabka iyo sunnadu marka cilmiga laga hadlayo waxay ku jiraan baabka fuuxisada iyo waxa weeye maaragtay allah kuwa xidigiya iyo noocaas maaragtay marka cilmi ma aha isagu. tiimaha markaa si aan maaragtay غayr mubaashir inoo saameynayso oo cilmigii sharciga ahaa marka cilmi ma naqaano xataa waa dhaweyto faransiisku way ictiraafeen waxaan xidiginta iyo jaamacaadkooda Paris kulliyad kamid ah waa la ictiraafay waxa loo sameeyay in lagu barto oo qof markaa ka soo baxa uu ka mid noqdo
dadka aqoon-yahanka marka ku beero ya marka waxaa laga yaabaa mala waxaynu sugaynaa in reer galbeedku ay waxyiga iyo diimaha u ictiraafaan inuu cilmi yahay markaasaynu markaa ciddii sharciga farataa laga yaaba markaa inu oran doono isaguna waa aqoon-yahan waa suurtagalba saa darteed walaalayaal wixii ilaahay ambiyada la soo diray cilmigaas weeye waa cilmigaa diinta isagaana asal ah wey isagaana ka lagu liibaanayaa adduuniya akhraba isagaana furihii ah isaga aasaaskii culumta ah marka koowaad cilmigu inuu yahay wadada labaad cilmigu inuu yahay wadada lagu badbaadayo waxaa ku tusinaya sida ilaahay inoo amray in dadka wax yaqaana loo noqdo oo rabbi wuxuu leeyahy subxaanahu caza wajalla fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuuna aayaddaasi dhowr goor bay qur-aan kusoo noqotay fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuuna haddii aydan garanaynin kuwa cilmigale markaa weydiiya wixii markaa qofka muslimkaa ka khaldamo caqiidadiisa ama cibaadadiisa ama wixii maaragtay wax ka yeersi noqdaba waxaa markaa la amray inuu u laabto ahlulcilmiga markaa u laabto maxaa yeelay waxaa loogu laabanayaa waa waddadii lagu badbaadiyay wixii lagu badbaadayay bay hayaan wixii dadku ay ku badbaadi lahaayeen adduuniya aakhiraba ayay xambaarsan yihiin saa darteed baa markaa laina leeyahay kuwa wax garanaya markaa culimadaa wax weydiiya cilmigu inuu waddada lagu badbaadaya yahay waxaa kaloo inu tusinaya in qof wax lagu waajibiyo innaga sharcigeenna oo diintu ay tiraado waxaasaa lagaa rabaa amaba se la yidhaahdo wixii lagaa rabay markuu u hoggaansamo oo uu sameeyo way kaa ansaxday oo waa lagaa aqbalay oo waa lagaa yeelay waxay ku xidhan tahay shardi u ah cilmiga bimacnaa shardu takliifna waa cilmiga shardu sixati alacmaalna waa cilmiga in qofka wax lagu waajibiyo cilmi baa u shardi ah yacni goormaa qofka wax laga rabaa goormaa ilaahay qofkan bani aadamka ah uu aakhiro lagu ciqaabi karaa inuu yacni maaragtay wixii la amray khilaafay waa markuu og yahay oo ulakac markaa u khilaafi wey haddii laakiin uu jaahil yahay innaga sharcigeenna jaahilku waa macduur waa loo cudur daaraya xataa qofku haddii aan diimaba soo gaadhin islaamba haddii aanu soo gaadhin ahlu fatra layidhaha macduur weye la ciqaabi maayo naar la gelin maayo wax uu janno ku mutana dee muu samayn oo tawxiidkii lama iman saa darteed marka waxaa la samaynayaa yani waxa weye maaragtay waa la imtixaami doonaa aakhire sida xadiiska tirmidi iyo keyrkiiba ay wariyeen saxiixa ahaa culimadu ay ahlu sunna saxiixiyaan waxaa la mid ah qofka ku dhashay dimoonaanta doqonnimada ama qof caqligiisu dhiman yahi dad handhikaay ma jiraan saa intuu ku dhashay kuwa weynaa doona ku dhintay ama isagoo yarba hadduu doono waashay oo aan mukalafba gaadhin dabeedna sidaa ku dhintay ama maaragtay allah mustacaan sida culimada qaarkood qabaan yacni walow laga xoog badan yahay gaaladu ubadka ay dhalaan dadka caynkaas ah ee aan diimaba soo gaadhin amaba se caqligoodu ha sabo inaanay diintii maqal amaba se meel aan diinba lagu aqoonba haba ku noolaadeenoo dabadeedna sidaa ha ku dhinteene akhire dadkaas waa yani maaragtay waa la imtixaami doonaa kii imtixaanka ku baasaan ahlu jannu noqonaya kii imtixaanka ku dhacan ahlu naar bu noqonaya oo maxaa loogu cudur daarayaa oo iyagaanba tawxiidsan oo maaragtay allah mustacaan aan diinba gelin maxaa naar loogu guri waayey maxaa yeelay jahligu waa cudur daar waxay ku tusinaysaa arrinkaasi cilmiga qiimihiisa qofku wuxuu wax yahay oo lala xisaabtamaa oo uu safka insaan kusoo biiraya marka uu maxay aqoon leeyahy cilmi leeyahay sidaasi lamid ah ayaaba haddii yani arrinka intaanan ka bixin xataa cibaadaadka waa la mid macnaa qofka muslimka ahi wuxuuba sameeyey salaad buu tukaday way ka khaldanayd salaadu rukuucdaa ka khaldan ama sujuuddaa ka khaldan waxmaa ka khaldan soo arki maysid wax u sheegana ma arag saasuu iskaga tukaday waadan buu la baray salaaddii qofkaa salaaddii wixii ka khaldana ma soo celinaya maya waxba ka soo qaadaa inuuba rukuucdaba aanu aqoon ama sujuuddaba aanu aqoon yani maaragtay waa rugni ka mid a arkaantii salaadda ayaanuba aqoonba laakiin bilaa rukuuc buu ku tukan jiray bilaa sujuud buu ku tukan jiray maalinta uu barto oo loo sheego wixii ka horreeyey soo celi la odhan maayo maxaa yeele macduur waa jaahil qof mar hadduu jaahil yahayna cudurdaar buu leeyay maxaa u daliila waxaa u daliila xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidu musii'u salaatii ninkii salaaddiisu xumaynayay ninkaasi wuxuu ka tegayey rukni arkaanta salaadda ka mid a waa rukniga la yidhaahdo rukni kastuu la socdaa rukni kastoo arkaanta salaadda ka miduu la socdaa waa tuma'niinada ama xasiloonida marka qofku rukuuco inuu ku xasilo marka uu sujuudo inuu ku dego markuu istaago yani salaadda inaan noqon maxay qubqub ninkaa saxaabiga ahay nabigu u yimi alayhi salaatu wasalaam markaasuu nabiga salaamay iyo saxaabadiisa nabigu salaantii buu ka celiyey markuu soo tukaday 2 ragcadood markaasaa la yidhi fasalli fa inaka lam tusalli xadiiska saxiixad wada garanaysaan tukan maa tukane markaasuu haddana sidiisii la eg sameeyey 3 goor markay dhacday buu yidhi wallaahi waladii bacataka bilxaqi laa uxsinu hayraha tan midaan ahayn garan maayo markaasaa nabigu baray alayhi salaatu wasalaam idaa qumta ilaa salaatika faqul kada wafcal kada xadiiska dheere sheekh alalbani raxmatullahi calayhi oo kitaabkiisa
sifatu salaati nebiga oo asalka uga dhigay dabeedna uu ku soo ururiyey riwaayaadkii oo dhan markaa uu ku jimciyey. ayib arrinkaas marka wuxuu daliilu yahay qofka jaahilka ahi ama caqiide jaahil ha kaga sugnaado ama cibaado jaahil ha kaga sugnaadee inuu macduur yahay. hal arrinun baanu macduurahayn qofka aan jahligiisa loogu cudurdaarin. wixii ilaahay xaggiisa khuseeya waa loo cudurdaaraya, waana taan ka hadlayno. laakiin wax bani aadam xaggii khuseeya cudurdaar ma leh. hadduu qof dhag iyo dhaban fujiyo oo dabeedna yidhahdo maba aqoonba inay arrintaasi xaaraam tahay, miyaa loo cudurdaaraya? maya, loo cudurdaari maayo. haddii uu xaaskiisa furo oo soo ceshadoo furo oo soo ceshadoo furo saddexdii ka dhammaato oo haddana mar afraad damca inuu maaragtay iska wato oo yidhahdo ma aan aqoon, miyaa loo cudurdaaraya? waa jaahil buha miyaa la ohanaya? maya. wixii khuseeya xaq bani aadam wixii khuseeya cudurdaar ma leh. maxaa yeele culimadu waxay yidhahdaan alaslu fi xuquuqi alkhalqi alqisaasu walmu'aakhada. macnaa bani aadamka ama xuquuqda dadka dhex marta waxaa asal u ah in la kala qaato oo aan la isu cafin lana kala qisaasto. xuquuqda ilahayna maxaa asal u ah? alcafwu waraxma, ilahay inuu dhaafo subxana casa wajal una naxariisto. soo arki maysid. marka cilmigu markaa muhiimadaasuu leeyahay. waxaa lagu badbaadayaa waxa weye waa wixii aad yani cilmigu waxa lagu badbaadinaya waxaa kutusinaya wixii aad can cilmin u samayso oo maaragtay allah mustacaan aad ilaahay cilmi ugu caabudo, waxa weye waxa qiimaha leh, waxa weye waxaa tirsani, waxa weye waxa maaragtay allah mustacaan alla agti maqbuulka ka ahi. laakiin wixii can jahli aad u samayso lagu qabsan maayo, laakiin macno badan ma samaynayaan. waxaa kaloo kutusinaya walaalayaal mayna tusinaya walaalayaal cilmigu inuu yahay waddada lagu badbaadayo shardu tawxiid ba wey. qofka in tawxiidkiisu ansaxo, kelimatu laa ilaha illa allah ba inay ka ansaxdo oo kelmadda islaamnimadu kusoo gelayay shuruuday leeda. shuruudaha maxaa ka mid a? alcilmu, iyadaaba ugu horeysaba inuu qofku aqoon u leeyahay kelmaddani waxay xambaarsantay. kelmadda tani maxay wadataa? inagu hadda arrintaas mushkilad baa inaga haysto, cajan baynu nahay, dad badan baana inala mida. kelimatu laa ilaha illa allah waxa ay xambaarsan tahay aad uma naqaano. qofki isagoo laa ilaha illa allahu leh ayuu haddana wax badan oo laa ilaha illa allahdi burinaya oo meesha ka saaraya buu wataa. laa ilaha illa allah buu leeyahay, wax qof laa ilaha illa allahu lihi aan looga baahnayn inuu sameeyana haddana waa wataa, waa samaynaya. carabtii nabiga calayhi salaatu wasalaam wakhtigiisa joogtay kufaaru quraysh kelimadan aad bay u yaqaaneen. markii nebigu tawxiidka la yimi waatay yidhaahdeen ajacala alaalihata ilaahan waaxidan ina hada la shayun cujaab. ilaahyadii ma hal mid baa laga soo reebay? wax alla yaala wixii hawooyin iyo cibaado iyo maaragtay cubaad la caabudo ahaa ma hal mid bay isugu soo ururtay oo amarkiisa la qaadanaya oo nahyigiisa laga tegaya oo isaga keliya la weyneynaya oo isaga keliya loo hogaansamaya? wixii ma hal wadday noqdeen? ilaa iyagu 100 wadday haysteen. kelmadda aad bay u fahamsanayeen. innaga laakiin dad badanoo muslimiinta ka mid ihi ma fahamsanin. laa ilaha illa allah buu leeyahay, halkanna wuxuu ku wataa axkaamtii taaquudku allan ka wataa. soo arki maysid. ya isaga xaaraamtii xalaashii dejinaya. sidii gaaladii baynu waxaynu u samaysanay guryo baarlamaano la yidhahdo oo la sharci dejiyayaal. ya wuxuu dejinayaa maxaa saxa, maxaa khaldan, maxaa xaaraama, maxaa xalaala, maxaa waajiba, maxaa sunna. waa khatar wey. ya waxay ka hor imaanaysaa oo burinaysaa kelmaddii tawxiidka. yani macnuhu ma aha markaan sidaa ilahay ugama jeedo inay dadka muslimiinta majaalis shuuro samaystaan, meelo ay ku tashadaan oo maaragtay danahooda kaga hadlaan. laakiin waxaan uga jeedaa qaabkan hadda baarlamaanadu u samaysan yihiin wuxuu khilaafsan yahay 100% sharciga iyo diinta ilaahay subxaana wa tacaala. iyagaaba dadkaas sharciyada dejiya, axkaamta iyagaa dejiya. ya gabadha la guursanayo da'deeda imsaa lagu guursan karaa? kitaabkii sunnada miyaa loo eegaa? maya. waddan kasta waxba u fiirfiiriya kadibna isagaa dejista. mid baa oranaya waa 18 wixii ka yari waa ilmo yaro markaa la kufsaday ama la farxumeeyey. qaarba qaanuun buu iska dhiganaya. soo arki maysid. allahu mustacaan. dee lama tirin karo. ribadii baaba de hadda waxayba tahayba yani la sharciyeynaya oo baarlamaanadii sharciyeynayaan oo qawaaniin loo samaynaya oo wasaarado fuliye leh oo guryo loo dhisay oo la waardiyeeyaa oo dunuub muslimna ka dhex dhisan. ya dunuub muslimna ka dhex dhisan. yani waa waxyaalaha runtii cajaa'ibta leh qofku markuu yani si dhaba muslimiinta zamankan joogto u fiiriyo. saxaabadii mid ka mid ah wuxuu yidhi wallahi taabiciinta isagoo la hadlaya, haddii maanta nebi maxamed soo bixi lahaa calayhi salaatu wasalaam salaadiina may wax kale idinkama garteen. hadda waa taabiciintii, waa qarnigii yani waa quruntii fadliga badnayd weeye. bal waxaad ka warrantaa hadda haddii saxaabi soo bixi lahaa, ilaahay saxaabi qadari lahaaba inuu soo nooleeyaba oo uu dabadeedna
dadka muslimiinta la dhex geyn lahaa ya waa arrin aad iyo aad u cajiib badan weeye yacni in ribada oo nusuus sariixii ku soo aroortay aynu guryo u samaynay oo bangiyo ku magacawnay oo lacag ka daymanayno oo ardaydii la barayo xisaabaha layna bari jiray soo boqolleedii dulsaarkii soo ma ahayn interestki yani ribadii sidee loo xisaabin lahaa ayaa layna baraya ya haddaa intaa qaadato inta maxaa dulsaar kuu fuulaya ya yani waxa way maarata waa kaas umuurtaas waxay tusinaysaa walaalayaal inaynaan kelimatu tawxiid sidii loo baahna inaynaan u fahmin haddii aynu sidii loo baahna u fahmi lahayn sidii saxaabadu ugu barwaaqoobeen oo ay baraaraha iyo barwaaqada uga qaadeen sidaas si lamid ah ayaynu inaguna ugu barwaaqoobi lahayn saa darteed kelimatu tawxiid shuruuddeeda waxaa ka mid a baynu niri cilmiga waxay ku tusinaysaa markaa cilmigu waxa lagu badbaadayay inuu yahay haddii aadan cilmi u lahayn kelimatu tawxiid way kaa buraysaa hadday kaa burtana ku badbaadi maysid wey maxaa u daliila in kelimatu tawxiid shuruuddeeda cilmigu uu ka mid yahay waxaa u daliila faclam annahu laa ilaaha ila allah waxaad ogaataa alle xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilahay mooye subxaana wa tacaala marka kelimatu tawxiid waxaa loo shartiyey cilmiga aqoon u yeelo waa layidhi waxaad aqoon u yeelataa kelmaddan aqoon nabigaa lagu leeyahy alayhi salaatu wasalaam kelmaddan lafteeda aqoon u yeelo maanta muslimiinta haddii lagu imtixaamo kelimatu tawxiid shuruuddeedu waa imisa waynu baranaa shuruudda salaada iyo shuruudda weysada waana arrin wanaagsan waa sax way fiican tahay waajibaadka salaada iyo waajibaadka maaragtay fiqiyaadka waynu baranaa laakiin tawxiidka ka muhiimsanaa war shuruuddu imisa tawxiidku imisa shardi buu leeyahy tawxiidku imisa rukni buu leeyahy maanta haddii la yidhaahdo kelimatu tawxiid islaamnimada aad ku soo gashay imise tiir bay ku taagan tahay oo haddii tiirkaasi kaa buro kelimatu tawxiid ay kaa buraysaa waxaa laga yaabaa inta ka jawaabtaa inay iska yaraato ya inta ka jawaabtaa inay iska yaraataa laga yaabaa walaalayaal cilmigu waxa lagu badbaadaya inuu yahay waxaa kaloo ku tusinaya sida ambiyadu cilmiga u dalbi jireen cilmigana u jeclaayeen qisada ilaahay subxaanahu caza wajalla fii suurati alkahfi uu rabbi kaga warramay ee nabiyullaahi khadir iyo muusa dhex maraysa calayhima wa calaa nabiyina afdal salaati wa aska tasliim waxay ku tusinaysaa sida ambiyadu cilmiga u jeclaayeen xadiiskii dheeraa ee fii saxiix albukhaari ayaamii dhaweedna an mukhtasara ku akhriyaynay yacni ayaa reer banu israa'iil nabiyullahi muuse waxay ku yidhahdeen man aclamu nnaas dadka yaa u cilmi badan markaasuu muxuu yidhi anaa u cilmi badan isagoo dabcan ka duulayey da intuu isagoo ka warhaya iyo maaragtay waxyiga ilahi waxyoonaya iyo waka inaanu cilmigii ilaahay u celin oo aanu odhan wallahu aclam ayaa ilaahay subxaanahu caza wajalla ku imtixaamay markaasa waxaa la yidhi addoon jooga majmac albaxrayn baa kaa cilmi badan nabiyullaahi muusa markaa muxuu sameeyey fadhi miyaa u yaalla ninkaa inuu cilmi u raadsado markaa damcay waata markaa qisada dheer ilaahay subxanahu caza wajalla halkaa kaga warramaya nebi ilaahay oo kitaabkii towraad ahaa ilaahay gacantiisa oo ku qoray kitaabka towraad rabbi weyne isaga gacantiisa ku qoray subxaanahu caza wajal xadiis saxiixay ku soo arooray kitaabkii rabbi gacantiisa ku qoray baa loo dhiibey ilaahay baa la hadlayey subxaanahu caza wajalla nebiga darajadaa gaarsiisan oo ululcazmi min arusulna ka mid ah ayaa wuxuu dhiishiisa u dhaansaday inuu cilmi raadsado ya inuu cilmi doonto arrinkaasi markaa wuxuu ku tusinayaa yacni waddada lagu badbaadaya inuu cilmiga yahay waddada lagu badbaadayo badbaadida ilaahay subxaanahu caza wajalla inay ku xidhan tahay cilmiga inay ku xidhan tahay nabigeena maxamedna calayhi salaatu wasalaam cilmi jacaylkiisa waata dee rabbi amray isna uu ku ducaystay ilaahay ku yidhi waqul rabbi zidnii cilman ilaahay waxaad ii kordhisaa cilmi iyo aqoon rabbi uu ii kordhi iyadoo jibriil u imanayo waxyiga ilahina subxaanahu caza wajalla uu ku soo degay sida nabigu cilmiga u jeclaa calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo ku tusinaya xataa waxyiga waxyaalo ahin buu nabigu danayn jiray oo qofka dee insaanka ah aqoontiisa iyo thaqaafadiisu ay u baahan tahay nabigu wuxuu jeclaan jiray ashcaartii hore ee carabta qabaa'ilkii hore ee jaahiliyadii hore ee qurayshyada carbeed gabayadii ay tiriyeen buu nabigu jeclaa gabayadaana waxa aada u yaqaanay abubakar radi allahu canhu waxaa laga yaabaa in badan ka mid inaan ku baraarugsan abubakar inuu yani miisadaana lahaa gabayadii hore iyo taariikhulcarab iyo aad buu u yaqaanay nabigu marka abubakar wuxuu ku ohan jiray abubakarow maxay carabi tiri bal gabayadooda ii tiri markaasuu abubakarna u tirin jiray marka qaarkood ohan jiray rasuulka ilaahayow miyaan ilaahay wax inaga deeqa ina siin markaasuu nabigu ohan jiray nacam ilaahay waa ina siiy wax inaga deeqa laakiin tiri wax maaragtay inaga deeqo oo ka qiimo badan baa ilahay ina siiya laakiin haddana tiri markaasuu yani waxa maaragtay tirin jiray abubakar radi allahu canhu xataa saxaabadu iyadoo nabigu dhex jooga calayhi salaatu wasalaam cilmi jacayl heerka ay ka gaadheen ayay waxay dooni jireen inay kutubtii hore iyo wax ka ogaadaan waata cumar ibn khataab radi allahu canhu
isagoo warqad yar sito oo kitaabkii towraad ee muxarafka ku qoran yahay uu nabiga ula yimi sala allahu alay wasalam. markaasaa nabigu yidhi amutahawikun anta ya bna khataab, ibna khataabow maqar baad iska tuuraysaa, maxaa ku falaysaa yani kitaab muxarafa ya ilahay baaba subxaanahu caza wajalla ku siiyey yani waxa weye maaragtay kitaab waxyi tari ahoo hadda soo degayaaba ilaahay maarata kugu arsuqeeyey oo nebi ilaahay baad agtiisa joogtaa, maxaad ku falaysaa? laakiin maxay ku tusinaysaa qisada? waxaan uga jeednaa sida ay saxaabadu ambiyadana uga dhimbiil qaadanayeenoo cilmiga u jeclaayeen, oo iyadoo nebigu la jooga calayhi salaatu wasalaam ay haddana culumti kala raadinayeen. cilmigu waxyaalaha lagu badbaado inuu yahay waxayna tusinaya oo kale walaalayaal, qiyaamuhu ama saacaddu markay soo dhawaato calaamado badan bay leedahay oo tusinaya ama hordhacu ah adduunka burburkiisa, inuu adduunka burburayo. waxaa ka mid a calaamadaha uguna muhiimsan cilmigoo la kor qaadayo iyo jahliga oo fidaya. mar allaaliya markay saacaddu loo sii dhowaadaba maxaa sii badanaya? jahliguna waa sii badanayaa, cilmiguna waa sii yaraanaya. mar allaaliya marka saacadda loo sii dhowaadaba jahliguna waa sii badanaya, cilmiguna waa sii yaraanaya. ilamaa marka dambe la gaadho inuu nebigu yuri calayhi salaatu wasalaam saacaddu waxay ku istaagaysaa adduunkan iyadoo aan laga helaynin qof le allah allah, qof yacni ilaahay magaciisa garanaya wax kale iska daayay yaa marka dambe xitaa addunyada laga waayay. kuwaan waxaa ka horrayn doona kuwa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni ma garanayaan salaadi waxay tahay, oo soom wuxuu yahay, oo zaka waxay tahay garan maayaan. keliya maxay yaqaanaan? kelimatu tawxiid, kelimatu laa ilaha illa allah. markaasaa nebigu yuri calayhi salaatu wasalaam way ku badbaadayaanoo ilaahay baa taa ku badbaadinaya. markaasaa saxaabiga xadiiska warinaya rasuulka ilaahay oo say ugu badbaadayaan xadiiska sila. markaasaa nebigu yuri calayhi salaatu wasalaam tunjiihi min annaar, naar bay ka korinaysaa. yani waxaan uga jeedaa cilmigu mar ka dambaysa wuu sii yaraanaya, waa sii suulaya, waa dhimbiishaas nebi maxamed ka soo bilaabantay qoraxda ah oo marba ina baktiyeysay, inay yaraanaysay, inay sii nuqsaamaysay, ilaa marka dambe adduunku madoobaado oo markaa uu maaragtay aakhiradii iyo maaragtay saacaddii markay istaagto. waxa markaa lagu badbaadayaa cilmigaas weeye. haddii cilmigaasi meesha uu ka baxo oo kulliyan cilmigaasi meesha uu ka baxo, adduunna waa halaagsamaya, kuwa meesha ku noolna aakhiroodana waa ka halaagsamaysa. innagu hadda waxaan ku jirnaa baad moodaa waqtiyadii cilmigu la kor qaadayey oo weliba aad iyo aad maaragtay si runtii muuqata cilmigu usii yaraanayo. oo nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam ilaahay cilmiga addoomihiisa qulubtooda ka qaadi maaye, cilmiga rabbi wuxuu samaynayaa biqabdi alculamaa, culimadaa la ofsanaya. maanta haddaad dunida muslimka sidaa u fiiriso 20 sano ka hor ama 15 sano ka hor culimadii joogtay iyo hadda haddaad isbarbar dhigto yani waad arkaysaa in yani umuur rabbaanihi ay socoto. culimo waaweyn oo ajilo ah oo a'imo ah, imaamo ah ayaa inala noolaa qadar 15 sano iyo hadda laga joogo iyo yani maarata wax la mid a. maantana aan mid iyaga ka mid aanu adduunkan saarnayn, sida sheekh ibnu baaz, alimaam ibn nas raxmatullahi caleyhi iyo sheekh alalbani iyo sheekh ibn cuthaymiin iyo yani maratay raggii maaragtay jibaashaas iyo raggii la midka ah. cilmigu waxyaalaha lagu badbaadaya inuu yahay walaalayaal waxaa ku tusinaya gaalnimada iyo munaafiqnimadaba asbaabaha keena jahligaa ka mid a, aqoon-yaridaa ka mid a. inuu qofku gaal noqdo ama uu munaafiq noqdo waxyaalaha kalifa ama asbaabta u noqdaa waa badan yihiin, laakiin waxaa ka mid ah jahliga iyo cilmi yarida. maxaa u daliila? aayaddii qur-aankeeda rabbi subxaanahu caza wajalla caraabta iyo nimanka reemiyiga rabbi uu kaga warramay oo rabbi yidhi alcaraabu ashaddu kufran wa nifaaqan, yacni reer miyigu iyagaa gaalnimada iyo munaafiqnimada ay ku badan tahay. maxay ugu badan tahay talo? maxay geysteen? waxaa la yidhi waajdaru an laa yaclamuu xuduuda maa anzala allaahu calaa rasuulihi, wixii ilaahay rasuulkiisa ku soo dejiyey ee xuduud iyo axkaam ahaa ayaanay aqoon u lahayn. dadka ugu mudan ee wixii ilaahay soo dejiyey xuduud iyo axkaam ahaa inaanay aqoon u yeelan ugu mudani waa ninkaa miyiga jooga, ila cid wax baraysaa ma hayste. mar hadday sidaa noqdeen oo cilmiga ka haajireen maxaa ku batay? waxaa ku batay kufrigii iyo nifaaq baa ku batay, sida ilahi subxana wataala aayaddaas fii suurati tawba rabbi uu ku sheegaya subxaana wa tacala. saa darteed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa u diidi jiray inay tacarubaan, bimacnaa inay reemiyiyoobaan, inuu qofku reermiyi noqdo oo saxaabigu intuu magaalo ka tago oo maarata miyi iska aado. nebigu waa u diidi jiray calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa. waxaa suurtagal noqon kartaa qofku isagoo magaalo jooga dee inuu cilmigiina ka haajiro, sooma dhici karto. kaasi marka waxaynu odhan karnaa wuuba ka sii liitaa kaa miyiga jooga. kan waxaa isugu darsamaya cilmigii uu ka haajiray iyo
fitantii magaalada iyo maaragtay tamadunka iyo yani reer magaalnimada fitanteeda iyo jahligii baa isugu darsamay. qofkaasi marka khatar buu ku jira. ninkaasi laakiin jahliba ha hayo, laakiin fitantii waa ka badbaadaya, arigiisu iska raacaya. yani maaragtay wax lagu fidnoobo waxaa laga yaaba inaan la kulmin mashaakil iyo ciduu waxaa laga yaaba ciduu maaragtay qof la xantaba inaanu arag. ya xantu ku yar tahay oo beentu ku yar tahay, qofu beenu sheega alla ma kulmayo xataa hadduu sheegi lahaa. oo waxa weye maaragtay fisqiga iyo xumaatadu ku yar tahay, saa waxba laga yaaba inaanu qof dumara maaragtay indhaba saarin. yani maaragtay wakaas yani qofka laakiin magaalo jooga, magaalo maxaa ku dhan? xumaan o dhan baa taalla. ya xumaan o dhan baa taalla. yani maaragtay wakaas. saa darteed walaalayaal arrinkaasi waa arrin runtii in lagu baraarugo mudan, inaynaan isku darsanin, inaynu cilmigiina ka haajirno oo waddadii lagu badbaadayey ahayd oo nifaaqa iyo kufriga lagaga badbaadayey, yani aynuna ku nool nahay dhul hadda fitantiisu badan tahay. waktigan waliba hadda lagu jirana waa wakti runtii aad iyo aad u khatara, waqti runtii aad iyo aad u khatara wey. cilmigu asbaabta lagu badbaadayay inuu ka mid yahay walaalayaal, waxaa iyadana ina tusinaya caalimku, ninka caalimka ahi ee ilahay diintiisa garanaya, ee dabcan diintana da ku camal falaya, wuxuu ka fadli badan yahay oo ka qiimo badan yahay oo ilaahay uga dhow yahay subxaanahu watacaala kan caabidka ah laakiin aan cilmiga lahayn, kan caabidka ah laakiin aan aqoon diineed lahayn. oo nebigu waatu yiri alayhi salaatu wasalaam xadiiskii saxiixa fi targhiib watarhiib, sheekh albani tasixinayey, fadlu alcaalimi cala alcaabidi ka fadli cala adnaakum. wa fii riwaaya fadlu alcaalimi cala alcaabidi ka fadli alqamari cala saa'iri alkawaakib. yani caalimku wuxuu uga fadli badan yahay qofka caabidka ah sida yani uu uga wanaagsan yahay dayixu xidigaha inta kale. yani waxa maarata u qarinayo oo uga iftiin badan yahay, sidaas si lamid ah ayaa kana uga qiimo badan yahay. nabigu wuxuu yiri alayhi salaatu wasalaam, wuxuu uga fadli badan yahay sida anigu aan uga fadli badnahay kiina idinku hooseeya. yani aniga iyo oo maxamed alayhi salaatu wasalaam qofka ilaahay doortay iyo kiina idinku hooseeya inta inoo dhaxaysa ayaa caalimka iyo caabidkana intaa in lag ba udhaxaysa. culimadu marka waxay yidhahdaan waa lilmubaalaga, waa ku xeel dheeraan waxaan layna tusinayaa yani sida ay labadaa qof u kala fadli badan yihiin baa layna tusinaya. laakiin macnuhu ma aha nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam iyo keenna ugu hooseeya inta udhaxaysa in la eg baa labadaana udhaxaynaysa. yani daahirkiisa lama qaadanayo waxaa la tilmaamaya maxay, yani ku xeel dheeraan layna tusinayo cilmigu iyo qofku inuu aqoon diineed xambaarsan yahay fadliga weli. nabiguna waatu yiri alayhi salaatu wasalaam, caalimku marka uu dhinto shaydaanku waa farxaa, laakiin caabidku hadduu dhinto shaydaanku ma farxaya? maya. maxaa yeelay qofkan caabidka ahi dee cibaadadiisu isaga ku koobnayd. ya laakiin qofkan caalimka ahi shaydaankii buu la dagaalansanyay, oo intii shaydaanku uu luminayey buu isaguna muxuu ku samaynaya? yuu isna hanuuninaya. waxaa laga yaaba isagoo 100 sano ka hor dhintay in cilmigiisii lagu hanuunayo, oo de waa inaga culimada kutubtoodii haysana, ya oo akhrisanayna, oo xaaraantii iyo xalaashii ka eegayna, oo caqiidada xun iyo tasaxda ka baarayna, oo waxa weeye maaragtay diintii iyo maaragtay culumtii sharciga ahayd dhan maaragtay allah mustacaan ka dheeganayna. arrinkaasi wuxuu markaa ku tusinayaa cilmigu sida uu yahay wax lagu badbaadayo. qofkii markaa ka qaday tarikadii ambiyada, dhaxalkii ambiyada qofkii ka qaday, qofka caynkaasi markaa runtii khayr badan ayuu qofkaasi ka qaday, khayr badan buu ka qaday. waxaa laynooga baahanyay marka walaalayaal inaynu, waa sahlan tahay inaynu isu sheegno cilmigu qiimaha uu leeyahay iyo cilmiga barashadiisu fadliga uu leeyahay iyo alla agtii waxa uu ka joogo, laakiin waxaa loo baahan yahay in loo bedelo camal, arrintaa loo bedelo camal, oo aynaan noqonin yani waxa weeye maaragtay maadadu inaga xoog badan, inaanay maadadu inaga xoog badane aynu garanno oo dhuuxno oo ilaahay ka barino subxaanahu caza wajalla inuu ilahay cilmigeena jeclaysiiyo, cilmiga ku camalfalkiisana rabbi subxaanahu caza wajalla ina waafajiyo. cilmigu waxyaalaha lagu badbaadayo aakhiro iyo adduunyaba lagu badbaadayo, adduun iyo aakhiraba lagu badbaadayo, oo fitanta gaar ahaan lagaga badbaadayo inuu yahay waxyaalaha ku tusinaya waxaa ka mid ah iskaba dhaaf inaga dadkii inaga inaga horreeyey ee saxaabadii nebiga iyo taabiciintii markay fitantu dhacday oo la islaalaayey marka qaarkood oo dhigdaatay, saxaabada qaarkood oo aad u yaqaanay dhiigga muslimka xaaraamnimadiisa iyo fitanta ka fogaanteeda, oo axaadiista inta badan warisa dilka iyo mushkiladda uu leeyahay, kamay qayb gelin fitantii saxaabada nebiga dhex martay ridwanullahi calayhim ajmaciin.
sida maxamed ibnu maslama oo kale, yani sida abaabakrata oo kale saxaabiga warinayey alqaatilu ida altaqa almuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar. sheekh alislaam ibnu taymiyata raximah llahu tacaala kitaabkiisa minhaaju sunna wuxuu tirinayaa ilamaa iyo 17 saxaabi oo aqlabka inta badan axaadiista dhiigga xaaraamnimadiisa iyo ka fogaantiisa iyo wakhtiga fitanta iyo ka durugeeda wariyey, oo intuba aan ka qayb gelin dagaaladii iyo dilkii iyo maaragtay fitantii saxaabada dhex martay. arrinkaas marka wuxuu kutusinayaa cilmigu inuu yahay wax qofka xakamaynaya oo badbaadinaya oo waxa weeye maaragtay qabanaya oo ilaahay xasuusinaya subxaana caza wajal. waxaa dhici karaysa qofku cilmiga markuu baranayo inuu dano kale iyo aqraad kale iyo ujeedooyin kale iska leeyahy. wax suurtagala wey. waxaa laga yaabaa qofku isagoo cilmiga aad ku badbaadid iyo qiimihiisaba aan ku baraarugsanayn isle maaragtay inuuba iska bartaaba laga yaaba. laakiin cilmigu aakhirka waxaa la tijaabiyey oo la tajrubeeyey haddaad nuurka ilahay ku dhex jirto oo dhaxalka ambiyada aad ku dhex jirto oo aadan dhinacna uga bixin, marka dambe isagu inuu kaa xoog badanayo, qalbigaagana toosinayo, jawaarixdaada iyo xubnahaagana hagaajinayo. imaam maxamed ibn maxamed alghazali raxmatullahi caleyh baa waxaa laga sheegay inuu yidhi cilmiga markii hore alle keyrkii baanu u baran jirnay, laakin aba alcilmu ila an yakuuna lilah. cilmigii laakiin waa diiday in ilaahay mooye cid kale ay yeelato, cilmigii waa diiday. ma qofku inuu cilmiga ka dhex boodo oo dee ka dhex baxo, mise haddii uu yani waxa weye maaragtay badda nuurka ilaahay cilmiga alle ku dhex jiro oo marna halkan u dabaasho manacan u dabaasho, qofka ilaahay subxaana caza wajal waa toosinaya. waana waxaa rabbi u yidhi kitaabkiisa qur-aanka ugu yidhi inamaa yakhsha allaha min cibaadihi culamaa. sax way dhici karaysaa caaliman cilmigiisa ku camal falin, diintuna way sheegtay, laakiin waa naadir. arrinkaasi waa wax yar, waa naadir. naadirkana fuqahadu waxay yidhahdaan wanaadiru laa xukma lahu, naadirku xukm ma leh, waxba lagama qaato, waa laga digtoonaada lakin saa looma fiiriyo. laakiin qaacidada guudi waxay tahay culimadu iyo dadka cilmiga xambaarsani inay yihiin dadka badbaadaya, inay yihiin dadka ilaahay ka cabsanaya, inay yihiin dadka ilahay ugu dhow subxaana wa tacaala. laakiin ayaan dara ah baryahan dambe inay soo baxday dad culimadiiba lagu ibtilay inay soo baxeen oo aan shaqo kaleba lahayn, ya inuu caalim ama sheekh haysto uun mooye aan war kaleba aqoon, ama wuu bidcaysiinayaa, ama hadduu doono wuu gaalaysiinayaa, ama shaksiyaddiisu wax ka sheegayaa, ama waxa maarata isagu baa la daba dhigo wuu daba socdaa. qofkaasi fusaqadu waa ka badbaadeen. salafkii nin ka mid ahaa agtiisa nin wuxuu ku xantay nin muslima, markaasuu yidhi hebelow miyaad ruum ku duushay? markaasuu yidhi maya. markaasuu yidhi furusna miyaad ku duusho dagaal ku qaaday? markaasuu yidhi maya. dhowr meelood buu tiri, halkaana ma ku duushay? markaasuu yidhi maya. markaasuu yidhi intaasoo dhanna waa kaa badbaadeen. qofka muslimka ahina waa kaa badbaadi la'ay. waa xikmad wanaagsan oo aada u qiimo badan wey. qofka culimada iyo dadka nuurka ilaahay xambaarsan la daba dhigay diinta ilahay khudmaynaya, faasiqaa ka badbaaday, oo gaalkii baa ka badbaaday, oo munaafiqii baa ka badbaaday. qofkaasi waa qof fidnaysan, laakiin isma oga u fidnaysan yahay. oo qof markay fidnadu ku dhacdo yani waxa weeye wax shar ah ayaa waxaa loo tusaa inuu khayri. ilan kuwii saxaabada nebiga la dagaalamay oo maaragtay saxaabada nebiga ku baxay, oo cali bn abi aalib oo khudbaynaya yidhi cali bn abi aalibow ama kaba horreysiiye cuhmaan radi allahu canhu, markay qawqaadii masar iyo yaman iyo ciraaq iska soo urursadeen oo cuhmaan gurigiisa lagu hareereeyey, cuhmaan ayaan buu u soo baxay oo la munaadaroodo yidhi maada tanqimuuna minii, maxaad igu diideysaan? waa qiso dheer. imaam ibnu kathiir baa albidaaya wanahaaya kusoo rara, maxaa igu diideysaan? waxbay tiriyaan, jawaabtiisa hadda u bixi maayo, lakin waxaan uga jeedaa wuxuu yidhi markuu u jawaabay buu damcay inuu fadaaishiisana xasuusiyo. markaasuu yidhi war miyaydan ogeyn inaan ka mid ahay alcashara almubashariina biljanna, 10kii jannada lagu bishaaray? markaasay yidhahdeen ha waa ognahay, laakinaka khayarta, waad bedeshay. laakiin markii jannada lagugu bishaarinay sidaad ahayd hadda mid waa bedeshay yidhahdeen. war miyaydan ogeyn inaan anigu qoday oo maaragtay iibiyey ceelkii madiina oo muslimiinta u waqfay, oo dabeedna nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam cuhmaan ibnu cafaan maanta kadib wuxuu sameeyo loo qaban maayo? markaasay yidhahdeen ha laakinaka khayarta, sax baad sheegaysaa, laakiin waa bedeshay. ya yani wuxuu tiriyey intaasoo manqabo oo fadaa'ila oo fadaa'ishiisa aad u tiro badan, midna may diidana. ya waxaa waad samaysay, waxaana waad ahayd, laakiin maxay la soo taagan yihiin? waad bedeshay.
lakinaka khayarta waa bedeshay waatay sidaa ku dileen saxaabiga radi allahu taala canhu wa ardaa isagoo 90 sano ku dhow ya oo waxa weeye maaragtay gurigii yani maaragtay gabadhii nabiga calayhi salaatu wasalaam yani gurigeeda ayaa nabiga baa lagu dilay saxaabiga radi allahu taala canhu wa ardaa waxaad marka arkaysaa qofku hadday fitani ku dhacdo ya waxa ma kala garto yani fitanta ilahay naga badbaadiyo oo waxyaalaha ilahay laga magan galo weeye haddii qofku uu maftuun noqdo oo xaqa iyo baadilku iskaga darsamaan qoraxdaasaa waxay ugu ekaanaysaa dayax u noqonaysa war miyaad arkeen qoraxta bani aadamka dhan waa arkaan waxayna qoraxta maya warkiina waxba kama jiraan ya anuun baa qumanoo dayax weeye ya soo arki maysid marka fitanta ilahay naga badbaadiyo subxaanahu caza wajal saa darteed walaalayaal cilmigu waxyaalaha lagu badbaado ka mid fitanta lagaga badbaado qofku yani waxyaalaha la tijaabiyeyna waxaa ka mid oo ahlu sunnuhu ay qiraan hadduu qofku caalim yahay bimacna alkelima caalim iska yaryeel baa jira waxaa jira wax la yihahdo almutacaalim risaala jirta nin sheekhi qoray oo la yihahdo almutacaalim caalim iska yalyeel waa risaalo wanaagsan waa waxa lagu garto qofka aan diinta aqoonta badan u lahayn laakiin inuu aqoon leeyahay iska dhigaya mutacaalim baa risaalo qiimo badan wey aad iyo aad u fiican qofku hadduu caalim yahay fitanta ilahi waa ka koraya lama sheegin caalim min culamaai ahli sunna yani waxa weeye calaa mari taariikh maanta ilamaa iyo zamankii saxaabada caalim min culamaai ahli sunna lama sheegin oo waxa weye fitantu indha tirtay oo noqday saaxibu liwaa'i lfitan qofka waxa weye fitanta horkacaya hormuudka u he maaragtay waka lama sheegin maxaa yeelay cilmigu waa cismada cilmigu isaga wax badbaadinaya haddaad laakiin aragto qof maftuuna oo waxa maaragtay fitanta dhexda baalanaya oo maaragtay allah mustacaan waka waxaad ogaataa inaanu marka caalim ahayn cilmigu marka waxyaalaha lagu badbaadayo oo fitanta lagaga badbaadayo weeye intaynu adduunka joogno iyo aakhirada labadaba insha allahu tacala inahaasaan walaalayaal ku koobaya ilahi waxaan ka baryaa subxaanahu caza wajal inuu khayrkeena waafajiyo dhammaanteenba ilahi waxaan ka baryaa subxaanahu caza wajalla inuu cilmi inagu arsuqo ilahi waxaan ka baryaa subxaanahu caza wajalla inuu cilmiga camalkiisa inagu arsuqo inuu ilahay cilmigeena jeclaysiiyo cilmiga kitaabka iyo sunnada xalaawo iyo dhadhan gaar ay leeyihin dadkii hore markaad u fiiristaan walaalayaal culimadeyna marka taariikhdooda akhrido waxaad la yaabaysaa siday ahaayeen iyo inagu sidaan nahay maxaa yeelay dee iyagu cilmiga waxay dhadhamiyeen maxay macaankiisay dhadhamiyeen nin sheekhaad arkaysaa oo marka laga sheekeynayo kitaabu qoray weyn mualif weyn hadda matalan madhab alxanafi kitaabka fiqiga ugu weyn waxa la yidhaha almabsuut waa kitaab 30 mujalladow sheekha qoray iyo siduu ku qoray marka aad kitaabka aad yani waxa aad akhrido waad cajabaysaa sheekhu waa xidhnaa nimanka maaragtay shiicoobay markii dambe ee farisiyiintaaba u xidhnaa xabsi weliba dhulku hoostiisa abuu ku jiray sheekhu marka wuxuu samayn jiray warqadaha loo keeni jiray si un baa warqadaha xabsiga loogu soo dhumasho loogu soo gelin jiray kadibna kitaab waxbuu qori jiray kitaabku qori jiray waa laga qaadi jiray kitaabka dhan ee 30 mujallada ee xabsigu ku dhintay sheekhu markii dambe 30 mujalladihi ee kutub al-ahnaaf madhab al-hanafi kitaabka ugu weyn xagga fiqiga marjaca ugu weynihi sidaas uu ku yimid yani qofku markuu cilmiga dee macnihiisa garanayo oo waxa weeye maaragtay macaankiisa garanayo oo dareenkiisa garanayo marka way marka facaashaas oo kale ay ka hergeli kartaa waxaas oo kale uu samayn karaa laakiin inagu safxada inaynu shan xadiis oo ku yaala akhrisana culays nagu ah ya safxada shan xadiis oo ku yaala inaynu akhrisano ayaa culays nagu ah ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa ta'ala cilmiga inuu jeclaysiyo dhammaanteen cilmiga akhrintiisa cilmiga ku camal falkiisa culimada ka agdhawaadkooda ixtiraamkooda tixgelintooda u ducayntooda in ilaahay subxaanahu caza wajalla inuu waafajiyo ayaan ilaahay ka baryaa subxaanahu caza wajalla dhammaanteen hada wajazaakum allahu khayran واحسن الله اليكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد